بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها iyo qadarinta mudan ee meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka maanta iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya sida aad la socotaan daawadayaal waxa gobolada dhexe ee Soomaaliya looga dhawaaqay maamul goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya ama maamul goboleedka Central State ee Soomaaliyeed maamulka Central State ee gobolada dhexe waxa hogaamiya Sheekh Axmed Shaakir ayaa hogaamiya oo ah sheekh caan ah waxa uu leeyahay afar madaxweyne ku xigeen oo kala ah oo uu kamid yahay madaxweyne ku xigeenka Daacad oo isaguna qayb ka ah waxa kale oo gacanta ku haya maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Central State qaybo badan oo kamid ah gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya maamulka gobolada dhexe maamul goboleedkan Soomaaliyeed ee gobolada dhexe ee Soomaaliya waxa xaruntiisu tahay magaalada Dhuusamareeb waa magaalo madaxda gobolka Galgaduud waxaana haatan socda qorshe la doonayo in amniga guud ahaantiis looga qayb qaato madaxda maamul goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya waxa ay la tashi la qaadanayaan dadweynaha ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo kala tashanaya sidii qayb ama gacan loo geysan lahaa sidii gobolada dhexe oo Soomaaliya maamulkaasi uu taladiisa u gaarsiin lahaa Sheekh Axmed Shaakir Cali Xasan madaxweynaha maamul goboleedka Central State ayaa horay waxa uu shaaciyay in uu doonayo in la qabto shirar kala duwan oo dadka loogu yeerayo sidii ay nabadda iyo horumarka uga qayb qaadan lahaayeen iyadoo aan la socono in deegaano badan oo ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya ay gacanta ku hayaan haddaba barnaamijkan la magac baxay maanta iyo gobolada dhexe waxa uu diiradda saaraya waxqabadka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee gobolada dhexe ee Soomaaliya oo xaruntiisu tahay magaalada Dhuusamareeb kana taliya qayb inta ugu badan gobolada dhexe ee Soomaaliya barnaamijyo kala duwan ayaa laga soo diyaariyay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo magaalada Gurceel intaba haddaba waxaan idinku wareejinayaa markan magaalada Dhuusamareeb wariyaheena ku sugan waa Shucayb Maxamed Cali si uu markaasi faahfaahin iyo qodobo noogu soo bandhigo waxa barnaamijku markaasi uu ku saabsan yahay isaga ayaa idinku wareejinayaa Shucayb adiga leeyahay mahadsanid Xasan Cabdi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم قال أرك هبون داود يالي دلهانتين بميل وليبا ودنيا الدعالة إذا كتشوكتين هل كان واستوديو تلفزيون كعالمي الصومالي كيبل مجالة الوسمرة حرونت قبلة الدحية الصومالية داود يال واحد كسر دواتين برنامج كمان تيو قبلة الدحية الصومالية وانا على بين كجسو تيديو استوديو مجالة مدى حدا قبل كجلجدود برتمها دلكا مانتنا استوديو هلندن وحينوف اليورينا حسن شيخ أحمد عدي qodobada barnaamijka maanta iyo gobolada dhexe dhankeyga aad ku daawad doontii waxaa kamid ah madaxweynaha gobolada dhexe ee Soomaaliya Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa dhaliilay habkii loo soo maamusay ama loo soo agaasimay shirkii looga hadlayay higsiga Soomaaliya oo ka qayb galeen madaxda dawlad goboleedyada Soomaaliya ka jira madaxda dawladda federaalka iyo beesha caalamka waxaa daawad doontiin shir jiraayad oo arrimahaas uga hadlayay madaxweyne Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan qodobada kale ee ku soo qaadi doona barnaamijka maanta iyo gobolada dhexe Soomaaliya daawadayaal waxaa kamid ah maamulka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa soo saaray awaamiiro ku wajahan shacabka ku nool magaalada madaxda gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb waxa daawan doontiin barnaamijkan aynu kugu soo gudbin doonaa madaxa dhaqaalaha maamulka gobolka Galgaduud aan dhahay maamulka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Maxamed Axmed Warsame Koofi oo inooga warrami doona awaamiiraha maamulka oo soo saaray qodobada kale ee barnaamijka aad ku daawan doontiin waxaa kamid ah daawadayaal waa maxay doorka dhalinyarada ku nool magaalada madaxda gobolka Galgaduud ama guud ahaan gobolada dhexe ee Soomaaliya uga aadan isku keenida siyaasiyiinta gobolada dhexe ee Soomaaliya ee ku kala aragtidu dhanka maamulka iyo dhinacyo kale oo badan barnaamijka ayaad ku daawan doontiin hadii ay laga helo waa mar kale iyo barnaamijka maanta iyo gobolada dhexe Soomaaliya aan ku horeeyay madaxweyne Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo madaxweyne ka ah maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya xaruntiisuna tahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa dhaliilay habkii dawladda Soomaaliya ay u soo agaasimtay shirkii looga hadlayay ayaha Soomaaliya ee ku qabsoomay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shir jiraayad oo madaxweyne Sheekh Maxamed Shaakir qabtay ayaa u dhacay sidan waxaan ugu talagalnay warbaahinta gudaha iyo dibaddaba inaan siino shir jaraa'id
shirka oo ku saabsan ka hadlid aan ka hadlayno barnaamijka lagu tilmaamay inuu u dhaxeeyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira biyiga Soomaaliya iyo international community oo iyakuna ka soo qayb galaya shirka oo horena la isugu yimid Muqdisho berina ka dhici doona oo ay isugu imaanayaan magaalada Muqdisho waxaanu cadaynaynaa oo aan doonaynaa inaan halkan ka cadayno dowlad goboleedka gobolada dhexe ee ku yimid rabitaanka shacabka gobolada dhexe iyo shacabkoodu inaysan wax qayba ka ahayn aysanna ka mid noqonayn wixii ka soo baxaana aysan qusayn oo aysan saamaynayn maadaama wax talaahay ku leeyihiin aysan jirinin wax lagala tashada aysan jirinin wax tixgelina aan laga siinin dowlad goboleedka gobolada dhexe waxay u cadaynayaan shacabkooda in ay ku hagahayaan waxay hubaan waxa lagu tilmaamay shir looga hadlahayo higsiga 2016 inaysan qayb ka ahayn wixii ka soo baxaana aysan qusaynin oo wax saameyn aysan ku yeelanin gobolada dhexe maadaama wax tixgelina aan laga siinin oo shacabkii gobolada dhexe iyo maamulkoodii rabitaankooda ku yimid wax tixgelinaya wax ka soo qaybgelida iyo wax innaha la ekaatee laga tiriye aysan jirinin taas waxaan rabnaa inaan u cadayno beesha caalamka qolo walbana waa la socodsiinay maamulka magaala madaxda gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa soo saaray dhowr awaamirood oo ku wajahan shacabka ku nool gudaha magaala madaxda gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb qodobadaasi waxaa kamid ah inuu maamulku bilaabayo qaadista lacagaha canshuuraha loo yaqaano Maxamed Axmed Warsame Koofi waa madaxa dhaqaalaha ama xogeyaha maaliyadda maamulka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaana ka wareystay arrimaha ku aadan qaadista canshuuraha iyo sidoo kale awaamiraha kale oo soo saaray maamulka magaala madaxda gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb Maxamed Axmed ayaan jeclahay warreyn inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka maanta iyo Somali Cable ku soo dhaweeyo barnaamijka maanta iyo Somali Cable aragtidaada ugu horreyn ku aadan barnaamijkan in telefishinka caalamiga Somali Cable oo ka bilaabo xarunta gobolka Galgaduud هذه المنصة شعيب وأنا دواهي هذه أيام ومهل علينا يا TV Somali Cable عرفتي وناكسن وبرنامج كان أول أيام سوى ناكسن أيام الأصول ويننا. هذه تهين كل المالية المامور كحرمت قبل الحياة الصومالية وسمرهب محل لا يهاتن لا يمرك مامور كلام العابدين قبصهم. marka koobaad Shucayb aad iyo aad mahadsan tahay sida marka hore sheegay dhamaan wariyaasha iyo shaqaalaha Somali Cable waan uga mahad celinaynaa fursadda qaaliga ah ee siiyeen xafiiska arrimaha dhaqaalaha ee maamulka caasimadda Dhuusamareeb dowlad goboleedka gobolada dhexe iyo guud ahaan dowlad goboleedka fursadaha ay siiyaan waxaan leenahay fursad aad u wanaagsan oo sidaan markastana waan idinkaga mahad celinaynaa marka xigta waxaan rabaa inaan salaam qaali iyo arrimo wanaagsan u diro Soomaalida meel kasta iga daawanayaan ama meel kasta ay joogaan intii codkayga maqlaysa ama muuqayga arkaysa marka xigta su'aashaada qaaliga haddaan soo laabto aad iyo aad muddo dheer ayaa maamulkan dowlad goboleedka gobolada dhexe hadda noqday asagoo ah maamulaadka kamid ah oo magaciisu ah Al-Sunna wal Jamaaca ee bartamaha Soomaaliya muddo dheer ayaa xafiisyada lagu soo shaqeynayay qof maroo ka shaqeynayay maanta anaga joogna markii ugu dambeysay ama taariikhdii ugu dambeysay haddaan ka soo qabto
todobadii bishii lixaad ee sanadkan ayaa xafiisyadan si rasmi ah dib loogu furay oo bulshada in lagu shaqeeyo oo loo adeego ilaa ay haddana way shidan yihiin adeegyo badan ay leeyihiin gaar ahaan xafiiska maaliyadda oo aniga aan xoghayaha maaliyadda ee degmada ka ahay arrimo badan ayaa ka hirgalay shaqaalo badan ayuu leeyahay nidaam badan ayaa ka jiro marka waxaan leenahay marka koowaad wax badan ayaa noo qabsoomay ayaan dhihi karnaa marka xigana insha allahu tacaala nidaamkii iyo qaabkii halkaan rabna inaan kasoo gudbino haddii ilaah yidhaahdo waxaa la hadalhayaa amaba bulshadu ay hadalhayaan in maamulka magaalada dhuusamareeb uu dhowaan bilaabi doono qaadista canshuuraha bal waxaad inooga warantaa waqtiga aad iclaamisan inay bilaabanayaan canshuurahaasi nuucyada ay kala ahaanayaan iyo sida dadka looga qaadayo maantay waa taariikhda waxay tahay waa 22 bisha tobnaad ama October sanada 2015 si rasmi ah maamulku muddadaas aan hore u soo sheegay oo hadda laga soo bilaabo 7 bishii lixaad ayaa waxaa la process gareynayay qaabkii dadku maamulkooda ayagoo ama shacab ha ahaadeen ama dadka maamulka shaqeynaya aadeen si wada jira deegaanka horumarkiisa looga qayb qaadan lahayo sidaa dareemi kartidna ama la dareemi karana maamulka ama shaqo kastoo la qabanayo waxa u horeeya ku socdaan waa dhaqaalaha bulshada muddadaas dheer aan soo sheegay in badan ayaa waxaa jirtay inaysan halkii muxuu ahaayeen waxba laga qaadinin bishaan hadda aan ku jirno oo 22 maanta maraysa dhexdeeda inta ka horeysa processka ayaa socday wax kalena ma aysan ahayn oo processku waqti dheer gooni uusan qaadanaynin waxay ahayd dadka oo ku jiray duruufo adag iyo barnaamijyo badan oo dagaaladii dhacay iyo waxyaabo kasoo kabashadoodii sidaas darteed dowlad goboleedka oo u arkay in xilligan abaaro iyo barnaamijyadaas kale hadda soo sheegnay ay jiraan inaan dadka xilligan waxba la saari karin laakiin sidii dadbaneed oo caadiga ahayd ee dadku qofba wixii uu awoodo oo u bixin jiray ama u keeni jiray iyadoo la weydiinin maxaa yeelay maamulkan markasta wuxuu ku tiirsan yahay shacabka midkii arigiisuu keenayaa kii raashin haysta raashinkuu keeni jiray kii xoolo kale haysta xoolihiisa ayuu keeni jiray marka hadda waxa oon kaliya isbedelay markii ilaahay roobki siiyey dayrtii si wanaagsan ay u da-ayso gaar ahaan deegaanadan si fiican ay uga daaday qoondadii yarooda dadku ay sida ayagoon u kontarooneyn ay u bixin jireen oo qof walba ay horumarkiisa sida dadban uga qayb qaadan jiray si toosa inuu uga qayb qaato oo boqolkiiba 90 ama boqolkiiba 1 si toosa looga dhigo laakiin ay boqolkiiba 100 dadku maamulkooda taageeri jireen ay bixin jireen in la si directly ama si toosa oo nidaami ah oo system oo meesha ay marayso oo cad oo xisaab leh oo xisaab celin leh in dadkii wax loo farsameeyo 20 bisha ayaan wareegtadaas soo saarnay wareegtadaasi waxay ka baxday warbaahinta ilaa 4 qodob ayaana ku xusneed oo dhanka dhaqaalaha kaliya iyo canshuurta qaadisteeda kaliya kuma aysan xusneyn 4 qodob oo muhiima wareegtooyin kalena way soo bixi doonaan haddii ilaahay yiraahdo dadkuna aad iyo aad boqolkiiba boqol ayaa loo soo dhaweeyey marka waxaa la bilaabay in dadkii wixii ay bixin jireen boqolkiiba 99 in loo reebo boqolkiiba 1 si toosa oo xisaab celin leh oo nidaam looga qaado haddii ilaahay yiraahdo waayahay marka waxaad ka dhawaajisay in qodobo wareegtooyin oo la afar gaaraya maamulka degmada dhuusamareeb uu soo saaray bal inoo sharax qodobadaas afarta ah iyo waxyaabaha ay ku qotamaan aad iyo aad u mahadsan tahay inkastoo idaacadaha gobol ay si qaldan ama dad shakhsiyaad ay u baahiyeen maamulku wuxuu soo saaray wareegtadan waxay ka soo baxday xafiiska maamulka caasimadda dhuusamareeb xafiiska gudoomiyaha degmada reference numberkeeda ama tixraaceeda waxa uu yahay waa maamulka dhuusamareeb ama eber 15 taariikhda ay soo baxdayna waa 22 bisha tobnaad ama October 2015 waxay dhahaysaa wareegtadaasi laga bilaabo taariikhda oo maanta ah 20 bisha tobnaad 2015 waxaa maamulka caasimadda dhuusamareeb ku wargelinayaa dhammaan bulshada ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada qodobadan soo socda 1
waxaa maamulka degmadu bilaabay qaadista dhaqaalihii degmada dhammaan qaybihiisa kala duwan sida ganacsiga noocyadiisa kala gedisanaya wixii lamid ah laga bilaabo 1 bisha 11 sanada 2015. labo waxaa maamulka ogeysiinayaa dhammaan bulshada qaybaheeda in aan la dhisi karinin dhul ama dhisme aan fasax looga haysanin xafiiska waaxda dhulka degmada laga bilaabo 20 bisha 10 2015 oo maalinta wareegtadu soo baxday ah. saddex waxaa maamulka degmadu farayaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha in ay iska diiwaan geliyaan waa dhismaha macnaha dadka dhiso fundiyaasha iyo injineerada iyo wixii lamida inay iska diiwaan geliyaan xafiiska waaxda dhulka degmada laga bilaabo 20 bisha 10 2015. qodobka afraad ugu dambeeya waxaa maamulku farayaa dhammaan milkiilayaasha ama matalayaasha milkiilayaashaas dadka gaadiidka iska leh milkiilayaasha ama matalayaasha gaadiidka kala ah sida bi'alka taksiga gaadiidka raaxada gaadiidka ka kiraysan NGOska gaadiidka ka shaqeeya dhismaha iyo wixii lamid ah ee ka shaqeysta degmada iyo deegaanada caasimada iyo deegaanada hoos yimaada inay iska diiwaan geliyaan xafiiska maamulka degmada laga bilaabo 25 bisha 10 2015. waxaa intaas dheer waxaa lagala soo xiriiri karaa maamulka taleefanadiisa ciwaanadiisa ayaa intaas ku qoran. marka afartaas qodob oo muhiim u ah bulshada oo midka koowaad uu yahay in dadka ay ogaadaan dhaqaalihii ay bixi jireen in loo nidaamiyey loo habeeyey meeshii 100% ay ka bixi jireen 100% hal ay ka bixiyaan oo si nidaam ah oo toosan. qodobka labaad oo ah inay isdiiwaan geliyaan bulshada dhammaanteed bulshadu inaysan macnaha ay ogaadaan ama maamulka oo la socdo in wixii la dhisaayo oo guryo ah ama ilaa waxay leeyihiin dhismuhu wuxuu leeyahay qaybo fara badan oo ama dhul ah ama guryo hore oo dhisnaayo la dayactirayo ah. waxaasoo dhan waxaa looga jeedaa wax kale maahan in la ogaado wadooyinku sida ay noqonayaan in la ogaado fiyaaluhu sida uu noqonayo in la ogaado quruxda iyo bilicda magaalada. waxaasoo dhan ayaa dhismaha in la hagaajiyo ayaa maamulku talagalay waana wareegto maamulka ka soo baxday ilaa laga bilaabo 20 bisha oo waqtiga wareegtadu soo baxday ah. qodobka saddexaad wuxuu farayay in macnaha isdiiwaan geliyaan shaqaalaha dhismaha ka shaqeeya si fursada loogu abuuro si tababar maamulka u siiyo si jaanisida dadka ama hay'adaha aadeen ama dadka laha aadeen jaanisida haya ee shaqaalahaas fursad si kala ay siiyaan telekoobkooda rasmiga iyo inta ay yihiin si jaanisida looga faa'iideystaan maamulku ogaada ayaa la rabaa in la diiwaan geliyo oo lala socdo loo siiyo sharti qof walba xirfadiisa qofba qofku ka wanaagsan yahay la ogaado qofba qofku ka shaqo fiican yahay la ogaado dhammaan waxyaabaha loo diiwaangelintooda ama inay xafiiska yimaadaan la amrayo ay kamid tahay. qodobka ugu dambeeyo ahay gaadiidka ka shaqeeya deegaanka dhexdiisa tuulooyinka iyo caasimada intaba tuulooyinka hoostaga waxay wax kala ma aan in tirakoob ayaga rasmiyana la helo oo gaadiidka la ogaado qaybihiisa kala duwan laftirkiisa ammaankii oo qayb ka qaato si gaadiidka nool maanta marxaladaha Soomaaliya ay marayaan la socona inkastoo deegaankeena amni iyo nabadgelyo dadka shacabka ayagu ay gacmahooda ku kasbadeen ilaahayna ugu tafadula ay haystaan haddana in la ogaado si amniga loo xaqiijiyo gaadiidka tirsigiisa hadduu yahay mid raaxo hadduu yahay mid bi'ala hadduu yahay mid taxi oo magaalada dhexdeeda ka shaqeeya hadduu yahay mid NGO-yada ka shaqeeya deegaanka iyo hay-adaha ka shaqeeya u shaqeeya oo ka kiraysan hadduu yahay mid dhismaha ka shaqeeya midka biyaha ka shaqeeya waxaasoo dhan inay la ogaado diiwaangelintana waxaa keenay in amniga qayb muhiima ay ka qaataan. marka qodobadaas iyo qodobo lamid ah ayay wareegtadana soo saar ama maamulka uu soo saaray ay ku xusneed. waxaan ka xunahay idaacadaha gobol oo weliba idaacadaha localka ah ama la yiraahdo maxalliga loo yaqaano ee gaar ahaan Muqdisho caasimada Muqdisho ka furan oo ka sheegi karno idaacada la yiraahdo kulmiye in waxyaabo been abuur aan ku tilmaami karno ka maamulahan inay baahiyeen oo ah dadka qof kasta waxa la saaray lacag oo shakhsi loo qaadayo dadka la canshuurayo waxa hadda ka hor dhacay ma hana leenahay totally ma dhici doonto haddii Ilaahay yiraahdo waxaan leenahay haddii ay milkiilayaal yihiin iyo haddii ay saxafiyiin yihiin iyo haddii ay yihiin dadka noocaas iskale idaacadahaas gaarka loo leeyahay saxaafadda madaxa bannaan ay kulay kamid tahay oo gaarka loo leeyahay waxaan leenahay raaligelin maamulku ay u gafeen inay ka bixiyaan haddii Soomaalidana waxaan leenahay waxaas wax ka jira ma lahan qof kastoo nu dhageysanayna oo u sheegaynaa waxaan dhihi karnaa haddii raaligelin ka bixin ama aysan sheegin idaacadaas dadka iskale ama milkiilayaasha ama agaasimayaasha ka ay waxyaabahaas la baahiyay hadda ka hor mar dhowr goorna waa la sheegay waxaan dhihi karnaa
waa wax sumcadeeda ama saxaafadda waxyaagii lagu yaqaan aan ka mid ahayn. وهذا أدي ما سنتهي هذا أي طبعا بلابسين قادسة عشورها ونعسية كبلابسين وقادسين كور هذا ما كان لقطه وحليا يكوري يعني حفيز قدر عوا وفرنا وما ممكن يسوى وبنستنا ومرعانا وكيد اللي هن ما ممكن مجرد بسمرة وكسو قلت الدغل وصح سيدا هروش أجنبا ما ممكن كستور شقينا يروح على كل شقي ولا جمارمان maamulka dowlad goboleedkan hadda loo wareegay ka horeeyay meesha uu ka soo geli jiro shacabku inay si aan xisaabsanayn si aan u tira koobnayn si aan indirect si rasmi ah oo qof walba wixii uu awoodo ama wixii uu haysto inuu sida naftiisa ugu hurayo asagu ama ugu huri lahay oo maamulka ugu hurayo ayaa maamulka wax ka soo galayeen. hadda waa ayadii la nidaamiyay oo dadkii qaab dowlad maadaama heer dowlad loo gudbay ama nidaam dowladeed la qaatay in qaabkii dowladnimo loo shaqeeyo dadka markasta way bixi jireen haddana way bixinayaan. marka nidaamkii bisa oo nidaam dowladeed laga dhigay oo la nidaamiyo oo habeeyay laakiin dadka ayaa awalna wax bixi jiray haddana diyaar ah bixin. marka halkaas ayaa wax ka soo gali jireen maamulka asagii oo hadda loo nidaamiyana waa wax kala maaha. وقت sida cad amaba muuqata ganacsiga gobolada dhexe ee Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay dadka reer guuraaga xoolo-dhaqatada loo yaqaano xilliganna gobolka ama gobolada dhexeba amaba magaalada Dhuusamareeb deegaanada hoos yimaado xooluhu uga yimaadaan deegaanada gobolkooda waa abaar deegaanada gobolkoodna roobab ayaa ka da'ay. marka ma sameeyeen research ama baaris ku sameeyeen in dadka xilligan ay waqtigii munaasibka ahaa laga qaadi lahaa cashuuraha. aad iyo aad hadda kahor waxaa jirtay barnaamij aan sameynay oo ah dad badan oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan. markii horeba sidaan sheegnaba xilligii hore ilaa laga soo bilaabo toddobadii waqtigii ugu dambeeyo maamulka oo meeshan si rasmi ah gacanta ugu dhigo ugu wareego oo kooxihii ka arriminayay dhowrka bilood oo meeshan laga wareejiyey. waxaa ilaa xilligaas dadka wax looga qaadi waayo waxay ahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan qaybo ka mid ah lala tashtay. waxaa la ogaaday xilligan inaysan ku habbooneyn in la qaado laakiin dadka sida ay wax u bixin jireen qof walba wixii oo qofkii aan wax awoodinin awlusan wax u bixin jirin qofkii wax awoodo laakiin si indirect ay wax u bixin jireen. marka inaan hadda tii rasmiga ayadoo dowladnimo inaan la samaynin oo xilligii dowladnimada loo wareegay wixii ka dambeeyay hadda markii arrinkan aan sameynaynana bulshada qaybo ka mid ah qaybaheeda kala duwan qaybo badan ayaa maamulka u sameeyay asumaad. waxaa loo sameeyay inay ka hadlaan arrinkaas waa la weydiiyey si dalkii kooxa iyo si gaargaar intaba kadibna waxaa la fahmay oo hoosta laga xariiqay inay tahay xilli dadku ay tabarucaad bixin karaan dalkooda iyo deegaankooda lagu dhisaayo. waxyaabaha markii la qaado haddii ilaaha yidhaahdo lagu qaban doono waxaa ka mid ah waxbarashada waa lagu kaabi doonaa wadooyinka waa lagu dhisi doonaa insha allahu tacaala biyaha waa lagu nadiifi doonaa waa lagu horumari doonaa iyo wixii lamida oo bulshada ay u baahan tahay. hadda waxaa hadda qabanqaabadeeda u socotaa oo isla dhaqaalaha koowaad lagu farsameyn rabaa haddii ilaaha yidhaahdo ka maamul degmo ahaan heer dowlad goboleed waxyaabo badan socda oo wadada dhisitaankeeda uu ka mid yahay iyo aeroboortka weyn oo magaalada ku yaala oo ka xanabaaray ka degmo ahaan ama ka maamulka caasimadda Dhuusamareeb waxyaabaha waxaa ka mid ah iskuulkii weynaay hoose dhexe xilligii dowladda ilaa laga soo bilaabo ilaa xilligan xirnay markii laga reebo qayb yar oo iskuul dhalinyaro ay wado si gaar ah wado wax looga dhigo asagii dhammaay in la kiciyo oo la ardadii iyo dadkii carruurtii bulshada qaybaheeda kala duwan in la isugu keeno. qorshahaas ayaan wadnay baryahan insha allahu tacaala marka ayaana furi doonaa waa qaybtaas waxbarashada. qaybta biyahana haddii ilaaha yidhaahdo ayadana waa loo gudbi doonaa. qaybta jidkana waxaan kala qayb qaadan doonaa dowlad goboleedka gobolada dhexe maadaama caasimadda ay meeshaani tahay meesha ugu weyn oo ugu badan oo waddadu ay ka burbursan tahayna la dhihi karo ay ka mid tahay meeshaani. marka insha allahu tacaala waxyaabaha lagu qaban doonana waxyaabahaasaa ka mid ah. marka qodobada soo sheegto dhani waxaa lagu dabdarayaa cashuuraha dadka bulshada laga qaaday oo xilligan la bilaabay. dabcan dad badan isweydiinaya su-aasha halkee la geyn doonaa dhaqaalahan bulshada laga qaadayo. marka arrimahaas horumarka oo aad soo tilmaamtay ayaa la dhihi karaa maamulku u qorsheynayaa in amaama cashuurta sababkasta ee loo qaadaya. aad iyo aad sidaas waaye wax kasta waxaa loo samayn doonaa percentage ama boqoley loogu talagalay waxaa la dhihi doonaa percentagekaas waxbarashada loogu talagalay
percentagekaas waxaa loogu talagalay wadooyinka oo kaabayaasha dhaqaalaha ka mid ah, percentagekaas waxaa loogu talagalay caafimaadka, percentagekaas waxaa loogu talagalay fayadhowrka, percentagekaas waxaa loogu talagalay nadiifinta ama biyaha soo saar, percentagekaas wax soo saarka beerashada iyo wixii lamid ayaa loogu talagalay, percentagekaas xanaanada xoolaha iyo wixii lamid loogu talagalay. percentage badanna waxaa la rabaa insha allahu tacaala maamulka iyo xafiisyada tashiilaadka oo ku dhaqdhaqaaqaya haddii ilaahay idmo in asagana la sameeyo. laakiin waxaan rajaynaynaa in wacyigii hore oo jiri jiray dhowr 20 sano lasoo dhaafay wacyi ka gedisan, maadaama xilliga ugu horeeya ee dowlad gobollada dhexe oo ka hirgal halkan haddana caasimadiisa aan joogna insha allahu tacaala meesha horumarka ka bilowdo inay noqoto ayaan rajaynaynaa. ugu dambeyntii marka waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo Maxamed Axmed Warsame Koofi xogayaha maaliyadda maamulka magaalada Dhuusamareeb, rajo intee leeg ka qabteen in shacabku awaamiyahaasi ay qaataan, sidoo kale rajo intee leeg ka qabteen in waxyaabaha badan ay soo tilmaantay oo dhismaha wadada laamiga ku jiro iyo dhammaan waxyaabaha kale horumar kale oo ballan qaadeen inay hirgalaan? aad u mahadsan tahay Shucayb. rajo weyn ayaan ka qabnaa. marka koowaad in qaab kasta oo maamulku soo jeediyo bulshada ay hoggaansami jireen laba sababood ayayna ahayd. marka koowaad maamulka aan soo jeedinayno waxaan dadka dantooda aan ahayn oo la dhihi karo dad gooniya lagu wataa iyo dadka oo u tababaran ama u diyaarsan in ay kaabaan maamulkooda ama dowlad goboleedkooda. marka insha allahu tacaala dad badan oo hadlayo oo afkaartooda ka dhiibanayaan oo arki doontaan kameedi ahaan haddii la yiraahdo. qodobkaas marka waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan ay dadku u hirgalo, maxaa yeelay wax gooni ah ma ahan, waana wax haddii la yiraahdo transparency noqon doono oo si cad ayagoo arkayo dadka loo nidaamin doono wixii laga qaado meesha aadaan iyo sida ay yihiin loo sheegi doono ayna arki doonaan. qodobkaas marka rajo fiican ayaan ka qabnaa. qodobka kale ah waxyaabaha aan rajaynayna in wax looga qabto dadka waxa laga qaado ayadana haddii la yiraahdo annaga hadda weli waxba qaadanin ayaan bilownay inaan aasaasno qaybihii ugu waaweynaa qayb ka mid oo ah waxbarashadii. ayadana waxaan rajaynaynaa inay si fiican u socoto, qaybaha kale oo dhanna waxaan rajaynaynaa inay socoto ay dhammaato insha allahu tacaala. rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa. Maxamed Axmed Warsame Koofi xogayaha maaliyadda maamulka magaalada madaxda gobolada dhexe ee Soomaaliya Dhuusamareeb ayuu ahaa oo ka qayb qaadanayay ama aanu ku wareysanaynay barnaamijka maanta iyo Somali Cable oo telefishinka caalamiga ah ummadda Soomaaliyeed oo u dhaxeeya ee Somali Cable oo ka baahan gobolada dhexe ee Soomaaliya, iyadoo mar waliba bulshadeena Soomaaliyeed meel waliba oo dunida ka joogaan aynu u ballan qaadayno in barnaamijyadan iyo kuwa lamid ah laga baahin doono dhammaan gobolada Soomaaliya ama Soomaalidu ay degto haddii ilaahay. waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo aad buu u mahadsan yahay wariyaheena Shucayb Maxamed Cali. waxaan ka cudur daaranaynaa degmadii ku saabsaneed dhalinyarada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb xarunta maamul goboleedka Central State in markaasi cilad xagga codka ah darteed inaanan u sii dayn karin, laakiin insha Allah barnaamijyadeena dambe ayaynu ku sii daynaynaa. daawadayaal barnaamijkani waa barnaamij quseeya waxqabadka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Central State ee gobolada dhexe uu hogaamiyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isagu deegaano badan oo ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya gacanta ku haya, isla markaana xagga amniga xagga arrimaha bulshada qayb weyn ka qaadanaya, iyagoo haatan wada qabanqaabo la xiriirta sidii caasimadda ama magaala madaxda maamul goboleedka Central State ee Dhuusamareeb ay wax badan bilicdeeda iyo maaragtay amnigeeda iyo wax walba ay u sameyn lahaayeen. waxay kaloo ballan qaadeen inay u gudbi doonaan deegaano badan si markaasi maamulku u hanto dhammaan dhinaca siyaasadda iyadoo aan dhiig ku daadan sidii uu u hanan lahaa guud ahaan gobolada dhexe ee wadanka Soomaaliya oo ay iyagu inta badan ka taliyaan. haddaba aan idinku wareejiyo dhinaca iyo magaalada Gurceel oo maamul goboleedka Central State oo haatan ka howlgalayo. waxaan idinku wareejinayaa wariyaheena Ibrahim Xaashi oo warbixinadan inaga soo diray magaalada Gurceel. Gurceel ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya waxay ka mid tahay magaalooyinka dhaca bartamaha Soomaaliya kana tirsan gobolka Galguduud. waxaa Gurceel hore u xukumayay maamulkii Ahlusunna wal Jamaaca iminkana isku bedelay maamulka gobolada dhexe, isla markaana hogaamiyo Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo koodii bishii 7 lagu doortay
magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka gobolada dhexe. waxa uu Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan soo noqday kusimihii gudoomiyihii guddiga fulinta Ahlusunna wal Jamaaca. waxa kale uu ahaa madaxa waxbarashada ee maamulka Ahlusunna deegaanada uu xilligaasi maamulayay maamulka Ahlusunna wal Jamaaca. muddo lagu qiyaaso 2 bilood isla markaana maamulka Ahlusunna waqtigaasi jiray ay ku maqnaayeen deegaan lagu magacaabay Balahood kaasoo dhaca qiyaastii 60 kiiloomitir dhinaca bari ee magaalada. waxyaabihii lagu xasuusto xilligii dowladda Soomaaliya ay gacanta ku haysay magaalada waxyaabihii dhacay waxaa ka mid ah dil loo geystay dad baxs sameynayay isla markaana muujinayay sida ay ugu qanacsan yihiin sii joogitaanka maamulka Ahlusunna wal Jamaaca oo meesha awood ah ay u saareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa talisa qaybta 12aad. Gurceel waa magaalada cilmiga waa magaalada nabadda. Gurceel waxay ka kooban tahay 4 xaafadood oo waaweyn kuwaas oo kala ah Dalsan, Wadajir, Tawakal iyo waliba Howlwadaag. waxaan 4tan xaafad ugu dambeeya sameeyay maamulka degmada kuwaas oo ku dhisan isdhexgal bulsho. gobolada dhexe ee Soomaaliya waxyaabo lagu xasuusto waxaa ka mid ah dhinaca ammaanka. si aan ugu korgalo xaaladda amni ee bartamaha Soomaaliya waxaan qiimeyn ku sameeyay gaadiidka isaga kala goosha bartamaha Soomaaliya. waxaan xilli dambe socod ka bilaabay degmada Matabaan oo ugu xageysa degmooyinka ay gacanta ku hayaan maamulka gobolada dhexe kana tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. degmooyinka dhinaca laamiga saaran intii aynu ku soo jirnay laamiga dheer ee isku xira magaalooyinka Gurceel iyo Matabaan oo qiyaasan isku jira 40 kiiloomitir. waxaan dhex ku soo marnay gaadiid iska jiifa kuwaasi oo sharaacday isla markaana la baakimay. waxaana taasi ay ku soo gashay amniga ka jira bartamaha Soomaaliya. gobolada dhexe ee Soomaaliya waa astaanta kaliya oo ay uga duwan yihiin gobolada kale ee Soomaaliya. markayna u soo laabano dhinaca degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyo waliba waxyaabihii u qabsoomay wixii ka dambeeyay doorashadii madaxweynaha maamulka gobolada dhexe mudane Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan bishii 7aad ee sanadkan. gudoomiyaha degmada Gurceel mudane Xuseen Salaad Ibraahim xilli aan ku booqday xafiiska degmada Gurceel waxa uu ka warbixinayaa waxyaabo u qabsoomay muddadaasi. waxa dhinaca kale uu soo hadal qaaday sabaha keenay in gobolka ay ka joogsadaan hay'adaha gargaarka waxaana taa uu ku dhaliilay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ibraahim waada u maasan tahay maamulka degmada Gurceel ee dowlad goboleedka gobolada dhexe waxa markii uu shaqada bilaabay wuxuu u hormariyay nidaamka degmada dejintii dastuurka degmada annagoo kaashanayno aqoon-yahanada iyo sharci yaqaanada Soomaaliya. waxaan sameynay sharci iyo nidaam kala dambeeyneed ee degmada iyo dastuur ay markaasi ku hagayso shaqadeeda iyo howlaheeda iyo nidaamka looga baahan yahay. waxaan ogtahay wax walba inaysan shaqay karinin sharci la'aan. sida awgeed waxaan dejinay oo nidaaminay sharciyadii maamulka ku shaqayn lahaa. inta markaan dejinay waxaan ku xijinay ajendaha maamulka ama qorshaha maamulka oo doonaya inuu wax ka qabto. waxaan u kala saarnay ilaa 3 qaybood sidaan hore u shaacinay ama bulshadu ay la socoto. qodobka koowaad oo ah sugidda ammaanka. qodobka labaad oo ah horumarinta bulshada iyo dhismaha guddiyada xaafadaha ee degmada. sidoo kale qodobka saddexaad oo ah dhaqaale aruurin. labada qodob ee ah ammaanka sugitaankiisa iyo horumarinta bulshada waxay ku xiran yihiin qodobka saddexaad. haddii aan la helin qodobka saddexaadna labada kale si wax u qabsoomaan way adag tahay. sugidda ammaanka si arrintaasi ay u hirgasho oo wax looga qabto waxaan u sameynay guddi ka kooban 6 xubnood. guddigaas oo ay xubnahaasi kala yihiin markaan xuso mas'uuliyadaha ama taytalada ay kala hayaan taliska ammaanka xogayaha amniga ee degmada taliyaha booliska degmada iyo taliyaha ku-xigeenka 3daas xubnood iyo guddiga sare ee degmada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad. xubnahaasi waxay yihiin xubnaha la yiraahdo waa 6 xubnood waxay ka kooban yihiin guddi isugu jira guddiga amniga. waxay ka shaqeeyaan oo har iyo habeen u taagan yihiin wax ka qabashada ammaanka degmada. waxaan dhisnay ciidamo boolis ah iyo taliskoodii oo nidaamkaasi ku shaqeynayo aan degmada u dejinay. sidoo kale waxaan ka shaqeynay anagoo kaashanayna ciidamada nabadgelyada degmada iyo kuwa dowlad goboleedka gobolada dhexe dhammaan inaan ka shaqeynay muddada 3 bilood ee aan soo marnay dib u heshiisiinta qaar ka mid ah beelaha wadadega gobolada dhexe
waxaana ilaahay mahadiis ah in arrintaasi ay meel fiican marayso hore waxaan u heshiisiinay oon isugu keennay oon u wada hadal siinay beelaha Mariixaan iyo Ceyr sidoo kale hadda waxaa wada hadalkii socdaa meel fiican oo maraya dhexdhexaadina aan u soo sameynay labada beelood ee Samatalis iyo Habargidir taasi oo deegaanka Udugley colaad iyo maaragtay shaqaaqa ka dhacday kadib markii maamulka uu ku baxay ciidamada ammaanka iyo ciidamada dowlad goboleedka gobolada dhexe ay gaareen ay kala dhex galeen beelahaas oo ilaa 400 labada dhinacba ilaa 800 oo ciidan ah oo min 400 labada dhinac ku qiyaasayo ay isu soo baxeen iyagoo maaragtay shaqaaqa colaadeed ay ka dhaxaysay kadibna maamulka gobolada dhexe oo ku guuleystay inuu beelahaasi ay nabad dhex dhigo maantana ay meel fiican marayso booqashooyin dib loogu laabtay deegaankii nidaamkii wada hadalka ee loo salay lahaa waxaana dhiman oo weli harsan waqtigii ay ballameen labadaas beelood iyo gogosha isugu imaan lahaayeen oo ku beegan 22 bishan October waan rajaynayna haddii Ilaahay yiraahdo inay degmada Martabaan isugu yimaadaan haddii wax cilada ay dhacaan ama kala baaqasho ay dhacdaan dib laga shaaci doono waqtigii ay isugu imaan lahaayeen laakiin waxaan rajaynaynaa in waqtigaasi sidii loo qabtay ay beelahaas isugu yimaadaan maamulkuna uu gogosho dhigo oo fidiyo oo dhexdhexaadiyo beelahaas wada hadal siiyo wixii ay isla gartaan oo maaragtay u noqdo gacmo iyo adimadii lagu fuli lahaa inuu u noqdo ayaan rajaynaynaa deegaanka Udugley waxaan isugu keenay odayaashii labada beelood way wada hadleen way heshiiyeen heshiiskii halkaas ku soo gaareen oo 22 October in la isu yimaado ahaa ayaana haatan lagu ballansan yahay hadii Ilaahay idmo waxyaabo kale ee maamulka u qabsoomay waxaa ka mid ah markii laga soo tago ammaankaas oo run ahaantii la isku hadlay karo 100% degmada Gurceel iyo deegaanada dowlad goboleedka gobolada dhexe oo ka taliyo oo idin nabadgelyada ka jirto waxaa ka sokaya arrimahaasi oo yacni aan wax ka qabanay iyadana isu socodka wadooyinka macnaha deegaanka degmada Gurceel gudaheeda kuwaasi oo bulshadu ay u kaashadaan yacni markay ganacsanayaan ama markay waxbarashada aadayaan ama markay shaqada aadayaan degmada Gurceel sida uu tahay waa degmada ugu isticmaalka badan ama markii la yiraahdo deegaanada miyiga degmada ay ugu xirnaanshaha badan yihiin oo ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin oo idin waxaa ku yaala isbitaal gobolada dhexe oo idin laga soo aado waxaa ku taala jaamacado jaamacad Safan University iyo jaamacad Salam University oo iyagana gobolada dhexe oo idin laga soo aado waxaa ku yaala airport waaweyn sida Gurceel airport iyo Galgaduud airport oo labaduba ay ku yaalaan degmada Gurceel inta dowlad goboleedka gobolada dhexe oo shaqeynayay ay ku soo biireen degmada iyadoo arrintaas ay ugu wacan tahay in ganacsiyaal iyo airport iyo waxbarasho jaamacadeed ay degmada ku soo kororto nabadgelyada ka jirta ay ugu wacan tahay oo sabab u tahay waxaan furnay wadooyin fara badan oo aan wax ka qabanay wadooyinkaasi oo ay isticmaalaan baabuurta bi'alada ah iyo kuwa ka imaanaya deegaanada fogfog intaba sidoo kale waxaan sameynay barnaamij la yiraahdo howlgal aan ugu magac darnay howlgalka dib u soo celinta bilicda magaalada iyo ilaalinta nolosha dadweynaha howlgalkaas oo baabuurta steejooyinkooda iyo meelaha ay ka raranayaan lagu kala hagaajinayo oo loo sameynayo steejooyin cusub iyo deegaano hor leh oo ay ka dhigtaan steejooyin taasi oo ay sabab u ahayd kadib markii ay cariiri noqdeen meelihii ay baabuurtu isticmaali jireen saxmiyad badan ay suuqi ka dhalatay ayna ay maaragtay adkaatay in la isu socdo qof dhiig joojin loo wado haddii maaragtay uu soo aado bartamaha magaalada oo kaleeto waxay noqotay in qofkaasi uu sababsado wadada oo ciriiri ah oo ku badnaa isticmaalka bulshada oo ku badnaa iyo gaadiidka waxaan u sameynay nidaam kaasi oo haatan wax badan laga dareemi karo magaaladii siday u furan tahay sida wadooyinka u furan yihiin baabuurtii oo nidaam loo kala sameeyey maaragtay busteejooyin ay istaagaan sidoo kale waxaan
qorshe ka sameynay roobabka oon hadda ku guda jirnay xilligii dayrta ahayd oo runtii saadaashuna ay sheegayso in ay imaan doonaan roobab aad u fara badan waxaan ilaahay ka rajeynaa inuu roob aan dhib lahayn oo noqdo laakiin waxaan sameynay talagal arrintaasi aan wax uga qabanayno waxaan furnay buundooyinkii iyo kanaaladii magaalada biyaha ka gudbi jiray waxaan sidoo kaleeto qorsheynay sidii loo xiri lahaa wadooyinka waaweyn ee biyaha magaalada soo geliya kuwaasi oo laga yaabo inay halis geliyaan baqaarada ganacsiga iyo guryaha dadka danyarta ah oo aan iska ilaali karin ama aan iska difaaci karin biyahaas qorshe biyo xiro loogu sameynayo ayaan qorsheynay welina waxaan ku guda jirnaa qorshahaas waxaan wax ka qabanay hadda furitaankii kanaalada waxaan sidoo kaleeto wax ka qabanay aan soo kormeernay yacni wadooyinkii ibraahim waxyaabaha kale ee maamulka u qabsoomay ama uu rajaynayo inuu wax ka qabto waxay yihiin qodobkii saddexaad oo ahaa dhaqaale aruurinta magaalada meelo ka mida ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn ee degmada waan u yeernay run ahaantiina aada iyo aad ayay noo soo dhaweeyeen waxqabadka socdo iyo markay arkeen inay dhaqaalahooda u huraan deegaanka inay wax maaragtay bixiyaan waxyaabihii aan u sheegnay hadda qaybihii aan bulshada uga yeernay oo dhaqaalo aan ku qornaynay runtii si wanaagsan ayay nooga aqbaleen si wanaagsan ayayna u bixiyaan meelo kaleeta ee noo qorshaysan ee iyagana aan rajaynayno inaan maaragtay dhaqaalo ka qaadno way jirtaa run ahaantii waxaa qof walba ogsoon tahay maamul wuxuu maamul ku yahay deegaankiisa ma jirto cid kale ee wax u qabanayso cid kale ee saacidaysa cid kale ee maal siinayso waa inuu deegaankiisa ka helaa isku filnaansho waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo arrimahaas dhinaca dhaqaalaha ah oo bulshada ruuxeeda faa'iido ugu sugan yahay maxaa yeelay shaqaalaha degmada u shaqaynaya ee dhaqaalahaas ka shaqaynaya wuxuu noqonayaa shaqaalo deegaanka ka dhex imaanaya ilaa hata 20 ruux ku dhawaad ayaan shaqaalaysiinay kuwa kalena inaan shaqaalaysiina rajaynayna haddii ilaah yiraahdo oo iyagana ay ka faa'iideystaan barnaamijkan dhaqaale aruurinta ee degmada ah dhaqaalahana waxaan rabnaa isla deegaanka inaan wax ugu qabanno oo cid kale aysan maaragtay markaasi awalan loo keeninin ibraahim qorshooyinkaas ayaan rajaynaynaa haddii ilaah yiraahdo howlgalkaana wuxuu socon doonaa ilaa 3 bilood ee ka dhiman sanadka howlgalkan aan ugu magac darnay dib u soo celinta bilicda magaalada iyo ilaalinta nolosha dadweynaha waxaan rabnaa haddii ilaah yiraahdo inaan magaalada bilicdeeda wax badan ka qabanno oon dhisno oon qurxino oon hagaajino qaabka nadaafadeeda iyo dhinacyadaas looga shaqeeyana waxaa ka hadli doona xogayaha arrimaha bulshada ee garabkayga fadhiya haddii alla idmo muddada 3 bilooda markay dhammaato sanadka cusub ee 2016 la gaaro haddii ilaah yiraahdo waxaan samayn doonaa bulshada waxaan uga warbixin doonaa wixii nooga qabsoomay ajendahan 3 bilood iyo sida uu hirgalay waxaan samayn doonaa haddii lagu guuleysto qorshahan qaybaha ka dhiman qorshe cusub oo sanadka cusub la jaan qaadi doona haddii ilaah yiraahdo oo isagana ama 3 biloodla ama 6 biloodla noqon doona oo aan wax uga qaban doono deegaankan oo runtii aad iyo aad ammaan u ah runtiina horumar fara badan oo ka jiro markaad fiiriso dhinaca waxbarashada markaad fiiriso dhinaca ganacsiga markaad fiiriso dhinaca maaragtay dhammaan isu socodka gaadiidka iyo nabadgelyada markaad dhinac walba ka eegto waxaa ka jira horumar aad iyo aad lagu faani karo waa meel nabadgelyo ah waa meel barwaaqo ah oo rabab ay ka da'een qof kasta ee Soomaali ah ayaana imaan karo qof kasta ee deegaankan ka soo jeedo ayaa imaan karo qof kasta oo maaragtay u baahan inuu dadkiisa wax la qabsado oo horumariyo ayaa imaan karo kaliya waxaa ka reebtoon kooxaha al-shabaab iyo waxyaabaha la midka ayaa maamulku diidan yahay iyo dadka dhibaatada ku ah deegaanka oo colaadiisa ka shaqeynaya laakiin qof walba oo nabadgelyada degmada iyo deegaanada hoos yimaada ka shaqeynaya maamulku horena wuxuu ugu baaqay inay deegaanadan yimaadaan inay ganacsigooda kusoo beertaan oo nabadgelyadan ay ka faa'iideystaan ay wax ku qabsadaan horena wuu ugu baaqay haddana waa ugu baaqaynaa in qof walba uu imaan karo
waa deegaankiini waa wadan Soomaaliyeed oo nabad ah waa meel qof walba oo ku nabadgelayo oo aysan ka jirinin hayb qabiil iyo wax kale midnaba waxaa ka jira maamul cadaalad oo garsoor ah oo shareecada islaamka ku shaqeeyo taasi oo qof walba Soomaali ah ay u siman tahay cadaalad iyo midnimo iyo sinaan ayaa ka jirta gobolada dhexe runtii waana wax Soomaaliya maanta si looga helaa ay adag tahay laakiin mudane gudoomiye taas markaan ka soo tagno dhinaca hay'adaha gargaarka inta badan kama howlgalaan gobolkan sababtu maxay tahay Ibrahim hay'adaha gargaarka sababta ay uga maqan yihiin inta badan gobolada dhexe waxay tahay waxaa jiro caqabado fara badan oo gobolada dhexe ay laga faafiyay taasi oo ah inay tahay meel aan la tagi karin run ahaantiina waa wax maaragtay ay ka shaqeeyeen dad siyaasad ahaan kasoo horjeeda gobolada dhexe oo ay ugu horeeyaan sida anagu aan ogsoonahay madaxda dowladda Soomaaliyeed ama kooxdan yar ee maanta maaragtay hamiga Soomaaliyeed iyo dowladnimadii Soomaaliyeed gacanta ku duubatay oo iyagu meeshii ay markaasi dan kaliya u yaqaan inay tahay dhul Soomaaliyeed oo nabadgelyo ah meelaha kale tan maaragta ka dhigay inay yihiin meel aan la tagi karin maanta gobolada dhexe waa meel nabad ah waa meel ay joogaan dad ku caan baxay inay iska celiyaan cadawga al-shabaab iyo waxyaabaha la midka ah waa meel dadka jooga gobolada dhexe ayagoo shacab ah ay waxay iska kaashadeen u istaageen inay iska xoreeyaan al-shabaab sida culimada diinka Soomaaliyeed ee Ahlusunnah wal Jamaaca gobolada dhexe ka xoreeyay al-shabaab iyo maamulaadkii ayaguna iskood u istaagay ee ka hortagay al-shabaab inuu maaragtay gobolada dhexe ummadda gumeysiga oo ku hay inay ka dulqaadaan nabadgelyadii ay keeneen iyo xornimadii ay keeneen dadku waa kuwan ku ganacsanayo waa kuwan wax ku baranayo waa kuwan maamulaadka ku dhisanayo dowlad goboleedka gobolada dhexe dadkii nabadgelyadaas iyo reyntaas ku soo barbaaray oo arkay macnaha ay nabadu leedahay ayaa haddana mar labaad waxay ku heshiiyeen inay dhistaan maamul iyagu iska leeyihiin oo rabitaanka shacabka maaragta ku dhisan maamulkii nooca ay u sameeyeen ayaana ka shaqeeyo hay'adaha samafalka iyo cid walba ee doonaysa inay wax ka qabato gobolada dhexena gacmo furan ayaa lagu soo dhaweynayaa ayagoon staff lahayn ay maaragtay hay'adaha UN-ka iyo dhammaan maaragtay hay'adaha beesha caalamka ka socda ay yimaadaan dadku wax yeelaysana ma jirto qof walbana way ogsoontahay nabadgelyada gobolada dhexe ka jirto waxaa ogsoonahay cunaqabatada ama maaragtay dhibaatada haysata gobolada dhexe inay tahay mid madaxtooyo waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Gurceel ee maamul goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya ee Central State oo markaasi ka hadlayay waxqabadka degmada Gurceel iyo sida maaragtay wax loogu qabanayo degmada Gurceel siyaasad ahaan iyo arrimahaas oo dhan ka soo waxa jira dad dhibaataysan oo curyaamin ah oo qaarkood maaragtay ama indhala yihiin ama ay xagga lugaha maaragtay ka cuyaarsan yihiin dad badan oo nolol caafimaad iyo waxyaabahaas oo dhan aan lahayn oo markaas u baahan in daryeel la siiyo oo daryeel caafimaad la siiyo haddaba daawadayaal insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in aanu khadka telefonka inaanu ku wareysano waad ka soo qayb qaadan kartiin waxqabadka maamul goboleedka Central State sidaad u aragtaan oo maantay meelo badan amni ka dhigay waxa khadka aan hadda khadka koowaad ayaan siinayaa halo assalaamu calaykum هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حسن عبدي. هيا مقعد نوقف بالله ويا ماشي أنا قصة وعيسو. حسين عبد الكريم قال لندن حقيقة إنجليزكا وحاب شو اللي بيسوي ده وحقبتك يعرضك دولة قبلتك صومالي سنترال ستيت. أوكي مركا إن بالكورن برنامجك وداونا يسي إن مامل قبلتك مامل قبلتك سنترال ستيت. هذا الأول يقسمها وحاب نوقف مقدا دولة قبلتك صومالي سنترال ستيت إن أي إسكابتي وذلك الكوبان إلى aada u waafaqsan tahay nidaamkii dastuurka dowladda Soomaaliya u degsanaa ee lagu sameeyay dowlad goboleed oo ahaa in lagu dhiso rabitaanka shacabka iyo khiyaarkooda intii mas'uuliyadda oo ay halkaa ku soo noqdaan waxaa kaloo aada ugu hambalyeynaysaa kuna bogaadinaysaa waxqabadka adeegyada bulshada oo sidii loo baahnaa ay u qabteen iyagoo ay weliba ka muuqato baahiyaadka aasaasiga ah
ummadaas ballaaran ee gobolada dhexe ku suganay xilligaan iyo xilligii horeba hayay. waxaa kaloo run ahaanti nooga muuqata oo aan aada ugu bogaadinaysaa shaqadii dowlad soomaaliyeed looga baahnaa in ay tahay geyi iyo dowlad goboleed laga qabtay oo laga yagleelay kana bilowday mudanna kudayasho. waxaan aada ugu riyaaqnay run ahaantii baahiyaadka aasaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha la yidhaahdo muxuu aha civic educationka oo baraarujinta shacabka sida ay ugu helan yihiin oo ay gudiyadaas u istaajiyeen waa ku hambalyeelaynaa. dhinaca nabadgelyadu waxaan hore u ogsoonay deegaanada gobolada dhexe inay ahaayeen kuwii deegaanada soomaaliya majaarkaanbooli ilaa raas xuseyn u horseeday tusayna dadku nabadooda iyo caqabadaha inay isaga dulqaadi karaan ayaga oo allah subxaana watacaala kaashada iyo taageerada isku filaanshaha iyo waxwadaqabadka shacabkaasi inay ku filan yihiin waana tusaale looga daydo. xilligaan haddaana waxaa looga muuqda amnigu inuu yahay mid habeenadiina lagu guuray karo, maalintiina lagu anfaaci karo. waana hambalyeynayna, waa ku bogaadinayna. waaya xuseen su-aalan ku weydiina in ay kaga daydaan qaab sidankaas dadaalka mudan ay ku tallaabsatay dowlad soomaaliya. xuseen waxaa madaxweyne ka yahay dr maxamed shaakir. waayahay xuseen waxaa ka warantaa maadaama maamul goboleedka central state uu dhisan yahay, galmudugna ay maamul goboleedka uu dhisan yahay, sideed u malaynaysaa inay uga wada shaqeyn karaan gobolada dhexe? waxaa xaqiiqaho loo muuqda waajibaad waxaa jira dowladda dhexe ayay saaran oo asaasiya dastuurka federaalka oo dowladda dhexe ay ku shaqaysahayna waxaa uu qorahayaa in mar weliba la tixgeliyo rabitaanka shacabka iyo sida ay shacabku ayagu ciyaarkooda iyagoo isu tagay oo ka kooban maamullo deegaanadaas ka jira iyo shucuurtii dowlad goboleed loo samayn lahaa wixii kasoo baxo kalfadhiga oo rabitaankoodu iyo ciyaarkooda ay ku samaysaan in dowladdu ayagu ay xalaalayso oo ay tixgelisaa qaabka dowladnimo oo looga fadhiyo weeye dowladii soomaaliyeed ee federaalka oo dowladda dhexaa. marka haddaad eegto dad badan ayaa ku dhaqan gobolada dhexe gaar ahaan maamul goboleedka central state sheekh maxamed shaakir oo hogaamiyo. marka maxaad u malaynaysaa in hay-adihii samafalka iyo maaragtay qaramada midoobay waxaad moodaa in cunaqabateyn wax u muuqda ay dadka saaran yihiin? maxaad ugu baaqaysaan hay-adaha samafalka dowladda dhexe ee soomaaliya maadaama dhul ballaaran uu maamul goboleedka central state uu ka taliyo? hay-adaha gargaarku waxaan ogsoonahay in ay ku shaqeeyaan baahiyaadka shucuurta caalamka. dadka gobolada dhexe waxay ka mid yihiin ummadda universalkan ku nool ay ka mid yihiin. haddii dowladdu ay caqabad ku noqotay oo ay hor istaagtay iyadoo dagaheeda gaarka ka eegeysa nolosha shacbiyadaha gobolada dhexe, waxaan faraynaa ugu baaqaynaa hay-adaha caalamiga, hay-adaha beerbixiyayaasha iyo qaramada midoobayba in aan dowlad caqabaynaysa shacabkeedii aan lagala tishan. sidaa darteed shacabkan gobolada dhexe hadduu eedaidakeda leeyahay aada u ballaaran waa waajib saaran weeye hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay in ay gaarsiiyaan wixii ay xaq u lahaayeen. waayahay xuseen aad baad u mahadsan tahay. sida wanaagsan khadka xiga ayaan eegeynaa. seed u aragtaan maamul goboleedka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya iyo maaragtay dadka ku nool oo aada moodid in waxqabadkoodii iyo hay-aduhu aanay tegay ay sheegeen inaanay tegaynin deegaankaasi? dad badan ayaa ku nool. maamulka central state waxaa loo arkaa inuu yahay maamul runtii sida dadka intiisa badan ay sheegayaan inta badan gacanta ku haya gobolada dhexe ee dalka soomaaliya. marka aragtidaada waad ka dhiiban kartaa, waad soo wici kartaa telefishinka si markaasi aada warbixin uga bixiso. halo assalaamu calaykum. halo assalaamu calaykum. walaal magacaaga halkaa naga soo wacayso, magacaaga halkaa naga soo wacayso. haye ma hore u gal barnaamijka, codkaagana si fiican looma maqlayo. hore u gal laakiin. xasana waxaan rabaa ka hadla hal arrin ay ku saabsan maaragtay arrinta ku saabsan cunaqabateynta. haye hore u gal.
waxaa rabaa dadka deegaanka degan waa dad Soomaaliyeed xuquuqda marka marka dowladda Soomaaliya inay cunaqabateynta kamada nimadara ha waa gartay marka waa yahay see adigu xakee naga soo wacaysa horta magacaaga waa yahay adigu maxakee baad joogtaa marka qolaan yidhaahdo xilka anigu jeedinahaa inay dowladda Soomaaliya maaragtay la heshiiyaan oo ayagu ay wax qabteen oo ay wadanka ay leedahay ciidanka iyo leeyahay laakiin waxay u baahan yihiin wadanka kamada waa yahay daawadayaal aad baad umahadsan tahay barnaamijkii runtii ku saabsanaa maamul goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya waxqabadkiisa iyo sidoo u sugay ammaanka gobolada dhexe ee Soomaaliya inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa aad baan ugu mahad celinayaa wariyaasheena magaalada Dhuusamareeb iyo magaalada Gurceel barnaamijkani wuxuu koobi doonaa toddobaadka soo socda iyo inta aan ku guda jirnaba deegaano badan oo ay ka mid tahay Caabud Waaq ay ka mid tahay Xeraale ay ka mid tahay meelo badan oo maamulkani awood ku leeyahay oo ku faafsan yahay ayaa insha Allah taala ay ka hadli doonaan oo ay waxqabadkooda kusoo bandhigi doonaan iyagoo aan mahad celinayo wariyaheena jooga magaala madaxda maamul goboleedka Central State ee Dhuusamareeb Shucayb Maxamed Cali waxaan kaloo mahad celinayaa wariyaheena jooga magaalada Gurceel Ibrahim Xaashi oo barnaamijkan si wanaagsan nogala qayb qaatay noona soo tabinayay warbixinadii kala duwanaa tan iyo intaan kulmi doono barnaamijkeena midka kale oo la midka ah oo maalinimada Sabtida 4 galabnimo aad soo gali doona barnaamijkeena waxaanu ku celin doonaa Isniinta 4 galabnimo Arbacada 4 galabnimo iyo Jimcaha 12 ayaa daawo doontaan saddexdaas mar ayuu soo galayaa telefishinka Somali Cable insha Allah taala waxaanu mahad celinayaa farsamo yaqaan Bashiir Bocor iyo farsamo yaqaan Axmed Dare Cabdi Samad tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo